boqol qof oo tahriibayaal ah ayaa waxay isugu jireen Ethiopian iyo Oromo iyo waliba Soomaali iyadoo intii uu maamulka uu ka howlanaa samata bixinta dadkan tahriibayaasha ah ay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso ay ku umushay hooyo kamid ah dadkii doonidaasi la socday. Doonidan ayaa intii ay sabeynaysa biyaha Yemen iyo Soomaaliya u dhaxaysa waxa soo badbaadiyay oo maamulka ku soo wareejiyay ciidamada NATO ee ku sugan xeebaha Soomaaliya. degmada Boosaaso Engineer Yaasiin Mire Maxamuud Dacar gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland iyo wasiirka maaliyadda dawladda Puntland Cabdilaahi Sheekh oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekada magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay qaabkii dadkan loo soo qabtay iyo waliba tirada ay ahaayeen iyo wadamada ay ka soo kala jeedeen. waxa la soo badbaadiyay tahriibayaal badda dhexdeeda sabaynaya muddo 5 cisho waxa qabtay oo soo badbaadiyay markab NATO oo leeyahay Jarmalku waxa uu ku soo wareejiyay ciidamada Puntland ciidamada dekada magaalada Boosaaso iyo shaqaalaha wasaaradda dekedaha ee Puntland si fiican bay uga howlgaleen waxa ay ku soo qaxayeen doon dekada Boosaaso laga kaxayay halka laga soo guray dadkaas waa 85 qof oo Ethiopian ah iyo 7 qof oo Soomaali ah. aan u mahad celiyo ciidanka dekada ciidanka dekada Boosaaso inaan u mahad celiyo hawsha wixii ka qaateen iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda dekedaha oo ilaa maanta oo jimcaha oo fasaxayd fasaxoodii ku qaatay badda dhexdeeda si ay u soo badbaadiyaan dadka aragteen oo 85 qof ah. waxa halka gadaasheeda fadhiya 85 qof oo doonta yarta saarayd doontii waa la gubay waa xumaatay waa la wadi waayay waa la gubay dab baa la saaray in la soo socodsiyaal raba laakiin hadda kadib si ujeedda baa dab loo saari doonaa haddii alla idmo. waxaanu digniin ugu diraynaa halka kan dadka Soomaaliyeed ee waxaan ku howlan ee ka shaqeynaya dadka naftooda ku biimeynaya badda iyo kuwa iyagu isku biimeynaya intaba. Cabdiwali Yuusuf Nuur waa naaqudihii waday doonidan oo ay dadkan la socdeen waxa uu ka warbixinayaa tirada dadkan tahriibayaasha uu siday iyo waliba qaabkii loo soo qabtay iyo goobtii ay ku wajahnaayeen waxaana uu yiri magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiwali Yuusuf Nuur waxaana wadana doon tahriibeed oo ku baxnaa anagu naaqoodo ka ahay oo ninka naaqoodaha inta ka jirtay aniga la dhiibay triibkaas ay ugu horeysay aan waday qadka ceelaayaan ka baxnay qadkeena nagula duqeysay matoorku nagula duqeeyay meesha maraakiib xaraabiya naga heleen annagoo iska sabeeyna dhowr bari. Xasan Jalaan Ali Xasan Heykal telefishinka caalamiga Somali Cable Boosaaso.